barnaamijkan caawa gebi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa 80 sano ka hor dunida dagaalkii labaad ayaa soo gabagaboobay wuxuuna ku soo dhamaaday Mareykanka oo laba bom oo nuclear ku dhuftay laba magaalo ku yaala wadanka Japan 80 sano kadib cabsidaasi ayaa dunida ka taagan oo ah in dagaal nuclear uu dhaco kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump laba markab oo ah nooca gujiska badda quusa oo nuclear ay ku rakiban yihiin la keenay agagaarka Ruushka ayaa arrintaasi isna wuxuu kaga jawaabay inuu ka baxay heshiiskii xakamaynta isticmaalka gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada gaaban sidoo kale gantaalo madaxyada nuclearka ku rakiban yihiin ayaa la geeyay wadanka Belarus oo xurafo ay yihiin Ruushka madaxweynihii hore ee wadanka Ruushka Dmitry Medvedev ayaa isna meesha ka saaray Ruushka haddii qatar la geliyay amnigiisa inay isticmaali doonaan nuclear haddaba warbixintan waxaynu ku eegaynaa digniinta laga bixinayo tartanka quwadaha waaweyn ee ku hubaysan nuclearka ay ugu jiraan inay markaasi kordhiyaan quwadooda nuclearka iyadoo xiisadan ay ka taagan yihiin meelo badan oo caalamka ka mid ah jasiiradda Taiwan ayaa ka mid ah iyo gacanka Korea bariga dhexna xaaladiisu waa bariga dhexe haddaba macluumaadkaas ayaynu barnaamijkan ku laf ururiyay ayaa qadka ku jira maxamed warbixintu maxay ku bilaabanaysaa gaar ahaan digniinta la bixinayo iyadoo hal heshiis oo kaliya oo arrimaha nuclearka la xiriira oo Mareykanka iyo Ruushka u dhaxeeya uu harsan yahay ayaa khabiiradu waxay leeyihiin waxa suuragal ah in tartan cusub oo xagga hubka nuclearka inuu bilowdo waxa ayna xusayaan khatartii loogu sigtay in colaad nuclear ay dhex marto Mareykanka iyo Itixaadkii Sovietiga ee burburay markaas oo meesha ugu xun u gaaray qalalaasaha loo yaqaano kii Cuba ee dhacay 1960 horaanteedii iyadoo horaantii 1970kii Mareykanka iyo Itixaadka Sovietiga hogaamiyahooda ay bilaabeen inay ka wada hadlaan tillaabooyin lagu yareynayo colaadda taasoo natiijadeeda ay noqotay in la gaaro tiro heshiisyo muhiim ah oo lagu dhameeyo nuclearka uu ka mid yahay gantaalada ridada dhexe ee nuclearka qaadi kara heshiiska ku saabsanaa 1987 la saxay oo lagu mamnuucayay gantaalada awoodda u leh inay nuclearka qaadaan fasaatee heshiiskaasi wuxuu dhacay 2019 kadib markii dowladda Mareykanka ay ka baxday waaya iminka waxaynu sheegaynaa maxamed in Ruushku ay ka baxeen heshiiskii xakamaynta gantaalada ridada dhexe iyo ridada gaaban maxaa ku soo beegay arrintan xilligan maalintii talaadadii la soo dhaafay ayaa Ruushku waxa uu ku dhawaaqay in ay soo afjarayaan xanabaadda ay ku soo rogeen ama joojintii ay joojiyeen gantaaladooda heshiiskaasi lagu xusay taasoo macnaheedu yahay in hal heshiis oo kaliya u harsan yahay inuu u dhaxeeyo Ruushka iyo Mareykanka heshiiska lagu magacaabo bilowga cusub ama the new start ayaa asna waxaa la filayaa bishii February 2026 inuu waqtigiisa dhamaado khabiirada ayaa waxay aaminsan yihiin in qarka loo saaran yahay in heshiiskaasi xataa uu burburi karo taariikhdaas la sheegay ka hor Alexander Wolvares oo khabiir ku ah xakamaynta nuclearka kana tirsan maxadka daraasadka caalamiga ee istiraatiijiyada ayaa sheegaya in heshiisyada nuclearka ee waqtigooda u dhamaanaya ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka in macnaheeda aynan ahayn inay suuragal tahay in hub nuclear la isu kaashan doono hase ahaatee ayaduna ma aha buu yiri inay hoos u dhigayso in aanan dagaal nuclear u dhacayn waa gartay hadda iyadoo xaaladdu ay halkaasi marayso 80 sano kadib maxaa keenay in la hadal hayo cabsida laga qabo dagaal nuclear oo dhaca dowladda Mareykanka iyo dowladda Ruushka ayaa weli heshiisyadii ay saxiixdeen ee caalamiga ahaa waxaa looga gol lahaa in looga hortago in hubka sida baahsan wax u gumaada inuu faafo iyo in hub nuclear la isu isticmaalo hase ahaatee xiisadda sii kordhaysa ee xiriirka labada dhinac Mareykanka iyo Ruushka oo ay weheliyaan
heshiisyadii ay hore u galeen oo sii dhammaanaya ama waqtigooda u dhacayo ayaa dad badan waxay ku haysaa walwal. dadkii ka samata baxay bamkii dowladda Mareykanku ay ku riday magaalada Hiroshima 80 sanad ka hor ayaa maalintii Arbacadii waxaa la sheegay inay aad uga niyad jabsan yihiin dadka nool ee ka sama baxay weerarkaasi, in ay weli sii kordhayso taageerada hogaamiyaasha caalamka ee hubka nuclearka ah inuu yahay mid cabsigelin ah, sida laga soo xiganayo urur ay leeyihiin saynisyahanada Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxay leeyihiin madaxyada dagaalada ayaa 10kii sano la soo dhaafay aad u hooseeyay. 1986 Itixaadka Soviyeetiga waxa uu haystay in ka badan 40,000 oo madaxa nuclear ah, halka Mareykanka uu ka haystay 20,000 oo keliya. heshiisyo badan oo la gaaray oo xagga nuclearka ah ayaa aad hoos ugu dhigay hubkaasi kaydka ahaa. bishii March 2025 ayaa urur ay leeyihiin saynisyahanada Mareykanka waxay ku qiyaasayaan Ruushka inuu haysto ilaa iyo 5,459 madax oo nuclear ah, halka dowladda Mareykanku ay haysato 5,177 madax oo kuwa nuclearka ah. isku darkooda hubka nuclearka ay haystaan waxaa lagu qiyaasayaa 87% hubka nuclearka caalamka oo dhan. arrintaasna waxa weeye arrin walwalkeeda leh. waayahay tan iyo dhowrkii sano ugu dambeeyey waxaa la arkayaa in laga baxay heshiisyo kala duwan ama mucaahadooyin ku saabsanaa xakamaynta gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada fog iyo nuclearka. maxaa u sababa arrimahaas? bishii May sanadkii 1972 10 sanadood kadib markii xaaladii qalalaasaha nuclearka lagu sugtay ee Kuuba gantaaladeeda ka soo baxday, ayaa dowladda Mareykanka iyo Itixaadka Soviyeetiga waxay saxiixdeen heshiiskii ugu horeeyay istiraatiijiga lagu xakameynayo hubka. heshiiskaasi ayaa waxa uu xadidayay tirada gantaalada ah, bambooyinka nuclearka ah iyo gujisyada nuclearka ay qaadi karaan. isla markaasi labada dhinac waxay saxiixeen heshiisyada gantaalada qaaradaha isaga gudba ee ballistikada loo yaqaano, taasoo xanibaad aydan lagu soo rogay gantaaladaasi difaac ahaan in ay qaadaynin weeraro nuclear ah. 1987 hogaamiyihii Itixaadka Soviyeetiga Mikhail Gorbachev iyo madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Ronald Reagan ayaa saxiixay heshiis lagu xakameynayo gantaalada ridada dhexe ee nuclearka ah, lagana mamnuucayo wixii ka badan 500 ilaa iyo 5,500 oo kilomitir. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay xilligii hore oo uu madaxweynaha noqday, isagoo ku eedeynaya dowladda Ruushka inay xadgudub ku sameysay heshiisyadaasi, inkastoo dowladda Ruushka ay beenaysay. aqalka cad ayaa sheegay xilligaasi in heshiiskaasi uu dowladda Mareykanka khatar istiraatiijiyadeed gelinayo marka la barbar dhigo Shiinaha iyo Iiraan oo labadoodaba aanan qayb ka ahayn heshiiskani. waxaa kaloo la xusay in waddan walba uu haysto gantaalada ridada dhexe ilaa iyo 1,000 in ka badan. waaya toddobaadkii la soo dhaafay Ruushku ayaguna waxay ka baxeen heshiis muhiim ahaa. maxay ku macneynayaan Ruushku, gaar ahaan dowladda waddanka Ruushka, arrintan tilaabadan ay qaaday? aqalka looga taliyo waddanka Ruushka ayaa hore ugu celiyey mar kale inay ka go'an tahay in heshiisyadaasi qodobadii ku qornaa uu hoggaansamayo. hase ahaatee maalintii Talaadada ayuu soo afjaray ballanqaadkaasi. xataa ka hor intaana waqti la gaarin, dowladda Ruushka ayaa waxay tijaabisay gantaalo cusub oo kuwa guuxooda ka dheereeya ah, waxayna ku tijaabisay bishii November dagaalka Ukraine. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sidoo kale sheegay in gantaaladaasi la geyn doono Belarus oo ah waddanka deriska la ah xulafadana la ah waddanka Ruushka dabayaaqada sanadkan. isla mar ahaantaasi heshiiska la yiraahdo START
lagu xakameynayo soo saarka xagga hubka nuclearka oo la saxeexay 1991 ayaa hoos loogu dhigay hubka istiraatiijiga ee Mareykanka iyo Ruushka ay haystaan ee madaxyada nuclearka, iyadoo xataa ay ku jireen gantaalada iyo bombooyinka iyo gujisyada badda hoosteeda mara ee gantaaladaasi qaada. gantaalka heshiiskaasi waa uu waqtigiisa ayaa dhammaaday. heshiis kale oo loo bixiyey Star 2 ayaa la saxeexay, hase ahaatee weli heshiiskaasi meel mar ma noqon. sanadka 2002 madaxweynihii Mareykanka George W. Bush ayaa ka baxay heshiiskii ABM kadib markii Sebtembar 11, 2001 weerar lagu qaaday dariiq dheeraha ganacsiga ee waddanka Mareykanka markaasi wuxuu ka warwarsanaa in heshiiskaasi laga yaabo inuu xadido in dowladda Mareykanka awoodeeda weerarkaasi ay isaga difaacayso oo carqaladeyn doono. waxaana ka mid ahaa dalalka aanan heshiiskaasi qaybta ka ahayn Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. waa gartay. ruushku markaas muxuu kaga jawaabay tilaabadaas? Ruushka ayaa si weyn uga soo horjeeday tilaabadaasi, wuxuuna ka baqayay inay Mareykanku u ogolaanayso in uu samaysto awood nukliyeera, taasoo laga yaabo in ay daciif ka dhigto nidaamkiisa nukliyeerka ee cabsigelinta ah. heshiiskii ugu dambeeyey ee labada dhinac u dhexeeyey ee la yidhahdo New START oo la saxeexay 2010 bishii Abriil ayaa looga golaa in lagu xadido hubka nukliyeerka ah ee labada dhinac ay haystaan iyo qalabka iyo agabka lagu ridi karo hubkaasi. waxaana la soo rogay in kormeer lagu sameeyo goobaha hubkaasi ay yaalaan. heshiiskaasi ayaa meel marnimadiisa ay dhimatay sida uu sheegayo Siddharth Koshel oo ah nin aqoon durugsan u leh sayniska militariga kana tirsan maxadka boqortooyada arrimaha la xiriira sayniska, xaruntiisa tahay magaalada London. heshiiskaasi ayaa waxa uu dhici lahaa baa leeyahay bishii February 5, 2026. saatee Ruushka ayaa mar horeba si ku meel gaar u joojiyay inay qayb ka noqdaan heshiiskaasi kadib markii uu xoog ku galay waddanka Ukraine, wuxuuna joojiyey kormeerkii lagu tagi lahaa goobaha iyo kaabayaasha nukliyeerka ee waddanka Ruushka. si kastoo ay tahay, Ruushka ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono inuu u hoggaansamo qodobadii ku qornaa heshiiskaasi ee lagu xakameynayay. waa gartay. waay marka laga tago arrinkan nuclearka, ruushka iyo shiinaha kaliya ma ahan, wadamo badan baa ku hubaysan, kuwana way qarsadaan. maxay khubarada ka leedahay markaa wadamada kale iyo hadday noqon lahayd xagga tartanka iyo khatarta nuclearka la xiriirta? Alexander Bolvaros oo ah khabiir ku ah arrimaha nukliyeerka iyo xakameyntooda ayaa wuxuu aaminsan yahay Ruushka iyo Mareykanka ma aha wadamada keligood haysta nukliyeerka. gantaalada ridada dhexe ayaa nukliyeerka qaadi kara. heshiiska la xiriira gaar ahaan ayaa waxa uu horseedayaa in labada dhinac baaritaan joogto ah lagu sameeyo, hoos loo dhigo xiisadda Yurub. heshiiskaasi haddii uu dhaco ayaa wuxuu dardargelinayaa xiisad ah in labada dhinacba ay dardargeliyaan samaysiga hubkooda. khabiirada ayaa waxay sheegayaan in heshiiskaasi haddii uu dhinto uu dardargelin doono xiisad dhex marta sidii kii dagaalka qaboobaa oo kale. waxayna muujinaysaa in xiiseyn badan ay jirto in hubka caadiga ah oo gantaalada ridada dhexe ah lagu jiheeyo, la qorsheeyo in lagu jiheeyo Mareykanka in uu gantaaladaasi Yurub keeno iyo badda Pacifiga laguna isticmaalo ama sidii loo isticmaalay oo kale Israa'iil iyo Iiraan ay u isticmaashay gantaalkaas oo kale intii dagaalku uu socday. Koshal ayaa waxa uu leeyahay
maxadka ay boqortooyada leedahay arrimaha istiraatiijiga lagu daraaseeyo ayaa meesha wuxuu ka saarayaa in heshiisyo cusub oo nuclearka la xiriira uu dhex mari karo ruushka iyo maraykanka mustaqbalka dhow, wuxuuna soo xiganayaa in ayna kalsooni ku filan labada dhinac ka dhexeyn ay kaga wada xaajoodaan arrimahan si hore loogu dhigo sidii loo xakameyn lahaa hubkan sida baahsan u gumaado heshiis loo gaari lahaa. wuxuuna faahfaahin ka bixinaya in dowladda maraykanku ay sii dardargelinayso inay raadinayso khataro kale. labada dhinac Bush iyo Trump maamuladooda ayaa ka baxay heshiisyadii ruushka lala galay, taasoo qayb ka ahayd walwal ay ka qabeen in heshiisyadaasi ay xadidi karaan awoodda kayd ee hubka nuclearka ee dowladda maraykanka haysatay. waaya annagoo markaa maxamed gabagabadii ku dhow shiinaha isaga laftigiisa quwad weyn buu noqday hadda dhankan teknolojiyadda hubka iyo nuclearkaba. maxay arrimahani warbixintu ka sheegaysaa? iyadoo shiinaha uu tartan xoogla kula jiro maraykanka iyo ruushka marka ay timaado hubka nuclearka, tan ayaa waxay horseedi kartaa in tartankaasi lagu jiro uu faraha ka baxo, iyadoo maraykanku uu sameysanayo hub dheeraad oo nucleara. intaasna waxaa dheer hubka caadiga ah oo looga hortegayo waxa loo arko khatarta ka imaanaysa shiinaha, waxaana sii dardargelaya gantaalada ridada dhexeeca iyo kuwa ridada fog ah ee laga yaabo in ruushka lagu riixo inuu asna dardargeliyo hubkiisa nuclearka sida Cashel oo hadalku dhigayo. xataa haddii lasoo afjaro dagaalkii qaboobaa heshiisyadii la galay, dagaalkii qaboobaa sidii loo fikeri jiray ayaa weli laga yaabaa inay socoto. waxa ayna dardargelin kartaa sida khabiiradu ay ka digayaan inay suuragal noqoto in wadamadu ay isburburiyaan oo nuclear isu adeegsadaan. wuxuuna khabiiradu ay ku nuxnuucsanayaan in loo baahan yahay in la isxakameeyo si aanan dagaal nuclear u dhicin. waaya aan kusoo gabagabayna marka maxamed, haddii xaaladdu iminka sidan ay marayso ilaa iyo inteeba markaa khatar loogu jiraa nuclear, ilaan cid walba oo nuclear haysata way og tahay cidda kale inay isticmaalayso. haddii Japan loo isticmaalay 80 sano ka hor, macnaheedu waxay ahayd inaysan Japan ku jawaabi karin nuclear sidaasna isku dhiibayso. laakiin hadda dhowr quwadood waaweyn baa jira oo nuclear haysta. marka haddii hadal hayntu iminka ay kordhayso walaacan la qabo, khatarta marka loogu jiraa dagaalkaas inuu dhaco nuclear isku adeegsadaan intee bay la egtaa hadda? dhaqdhaqaaqa marka la fiiriyo maraykanka dhankiisa iyo labadan gujisa u diray wadanka ruushka ee ruushka diyaargarowga u galay toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dardargelisay in ergeyga gaarka ee maraykanka Steve Witkoff uu ruushka tago, ayaa khabiiradu waxay leeyihin waxay markhaati cad u tahay in adduunka uu khatar xoog leh qarka u saaran yahay. waqtigii kama dambaysta ee maraykanku u qabtay wadanka ruushka oo uu bedelay haddana oo 10 maalmood ka dhigay, marka hore 10 ka dhigay, ayaa walwal weyn abuurtay. waxaan ayadana meesha ka maqnayn qarniga 21aad dagaalkiisa inuu ka duwan yahay qarnigii 20aad iyo qarnigii 19aad. marka ay timaado dagaaladan casriga ah, waxaa door muhiim oo lafdhabar leh diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, oo maraykanku la sheegayo inuu ka dambeeyo wadamo badan, iyo gantaaladan guuxooda ka dheereeya oo asna maraykanku uu gaabis ku yahay. waxaa intaa dheer in xuutiyiintu ay fashiliyeen mid ka mid ah agabyadii uu maraykanku ku faaniyay ee diyaaradihii maraakiibta waaweyn ee diyaaradaha qaade dagaalka ay qaadi jireen, ayagana waxtarkooda hoos u dhacay. waxaasoo dhan marka lasoo xorxooriyo waxaa muuqata dagaalka saddexaad ee adduunka nuclear haddii uu ka baaqsado in ay u baahan tahay, ama tartan hub nucleara uu si dardagalo, inay u baahan tahay in dhinacyadu ay isxakameeyaan. haddii la isxakameyn waayana waxaa muuqanaysa adduunka iyo qaabku hadda u socdo, ama dagaal haddii la galo ama hadday nabad noqoto,
qaabkii 80 sano hore adduunka sidii u socon jiray iyo wadamadii awood lahaan jiray awoodooda ayaa sii weeqmaysa ama Yurub ha noqdaan ama Mareykanka laftirkiisa ha noqdaan waxaana lagu rajo weyn yahay oo muuqata in heshiisyo laga yaabo in ay ka dhashaan kulankii uu Stikov uu ku tagay ergeyga gaarka ee wadanka Mareykanka Stephen Witkoff oo wadanka Ruushka laga yaabo inay ambaqaado heshiisyo cusub waxaa ayadana meesha ka maqnayn ama dagaal ha noqoto ama nabad ha noqoto Mareykanka iyo xulafadiisu ma noqon doonaan cidda adduunka maamusha waxay ka mid noqon karaan oo kaliya mid kamida awoodaha waaweyn adduunka soo baxay Mareykanka inuu ku qanci karo arrintaasi in kale waqtiga ayaan u deenaynaa laakiin khabiirado dhan waxay sheegayaan haddii uu Mareykanku dagaal galo iyo haddii uu nabad u joogaba awoodahan kuwa la muquunin kara maaha وهجاج محمد آد بعض ما حسنت هاي داود يشري ما حسيهن أنت أيام كسو جبيننا عاوة برنامجك داود سياد ورصعته وركني برنامج جدا معلوماتك أي نسوق بينه هدي أتكع صوت هاي برهن برشدة أبغى هراي هذا نروح الرهيب هذا كسو بيه أي نو برنامجك إن شاء الله أنت كهر رئيسة